Toddobada mucjiso ee cusub ee dunida iyo waddamada ay maanta ku yaalaan waa sidan. Tan koowaad waa derbiga weyn ee Shiinaha waxayna ku taalaa Shiinaha. Waxaa la bilaabay dhismaheeda qarnigii 7 ee ka hor Ciise dhalashadiisa. Dhererkeedu wuxuu ka badan yahay 21,000 oo kiiloomitir, waana dhisme militari oo aad u weyn oo loogu talagalay in dalka laga difaaco weeraro ka imanayay waqooyiga. Tan labaad waa Colosseum oo ku yaala Talyaaniga. Waxaa la dhisay qarnigii 1 ee miilaadiga, waana garoon weyn oo qaadi kara ku dhowaad 50,000 oo qof. Halkaas waxaa ka dhici jiray dagaaladii gladiatorada iyo munaasabado waaweyn xilligii boqortooyadii Roomaanka. Tan saddexaad waa taalada Kiristaha Badbaadiyaha oo ku taala Baraasiil. Taaladani dhererkeedu waa 30 mitir waxayna ka taagan tahay buurta Corcovado. Waa astaan qaran oo Baraasiil iyo diinta Masiixiyadda ah. Tan afraad waa Taj Mahal oo ku yaala Hindiya. Waa qubuur uu dhisay boqor Shah Jahan si uu ugu xusuusto xaaskiisii. Waxaa caan ku ah marmarka cad iyo naqshadiisa farshaxanimo ee quruxda badan. Tan shanaad waa Machu Picchu oo ku taala Peru. Waa magaalo qadiimi ah oo ay lahaayeen Inkayadu kuna taala meel dhererkeedu yahay 2,430 mitir. Waxaa lagu yaqaanaa dhismaheeda gaarka ah. Tan lixaad waa Chichén Itzá oo ku taala Mexico. Waa magaalo qadiimi ah oo ay lahaayeen Maayayadu, laguna yaqaan haramka Kukulkan, kaas oo dhismihiisu si sax ah ula jaanqaadayo dhacdooyinka xiddigiska. Tan toddobaad waa Patara oo ku taala Urdun. Waa magaalo qadiimi ah oo laga qoday dhagaxaanta casaanka ah, laguna caan baxay dhismaha Alfasna. Waad ku mahadsantahay haddii aad halka soo gaadhay. Fadlan like noo saar halkan waa Death.